dhigano wuxuu waaxid ku qoraysina laguma waaye sida qof jacayl loogu abuuro ma u malaynaysaa in jacaylku yahay waxaan la kontarooli karin ma u malaynaysaa haddii qof aad jeclayd aanu ku jeclayn inaanad waxba ka qaban karin sidoo kale ma aaminsan tahay inaanad qof jacayl ku abuuri karin sanado ka hor waxaan aaminsanaa in haddii qof aanu ku jeclayn aanad jacayl ku abuuri karin waxaan aaminsanaa in jacaylku yahay shay si dabiici ah u dhaca isla markaana aanan lahayn sharci iyo qawaaniin lagu kontaroolo balse muddo kadib markii aan bilaabay akhrinta cilmu nafsiga jacaylka waxaan xaqiiqsaday in jacaylku aanu ahayn shay iska dhaca ee uu leeyahay sharci haga oo maamula haddii fahanto isla markaana aad raacdo sharciyadadan waxaad si heer sare ah u kordhin doontaa fursadaha uu qofku kugu jeclaan karo qodobada sida qof jacayl loogu abuuro 1 si fiican u daryeel naftaada muuqaalka guud ee qofku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa inuu qofku soo jiito qofka kale sida fiican ee aad u daryeesho muuqaalkaaga iyo caafimaadkaaga waa shayga ugu horeeya ee ay dadku arkaan sidaa daraaddeed waa inaad waqti iyo dadaal u hurtaa qurxinta iyo ka warhaynta naftaada marka aad isku dayayso inaad soo jiidato qofka aad jeceshahay haddaba si aad u soo bandhigto muuqaalkaaga ugu fiican badso maydhashada samee jimicsi badan cunto isku dheelitiran gasho dhar nadiif ah oo soo jiidasho leh isla mar ahaantaana ha ka baqin inaad soo jiidato dareenka qofka kale 2 noqo qof naxariis leh si aad u soo jiidato qofka aad jeceshahay waa inaad noqotaa qof naxariis leh ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay inay kula dhaqmaan waxaa laga yaabaa inaad fududaysato arrintan laakiin waa xaqiiq haddii aad jeceshahay inay dadku ku xushmeeyaan kuna qadariyaan waa inaad bilowdaa inaad ula dhaqanto sidaa oo kale badanaa dadku waxay jeclaadaan qofka shakhsiyadda leh ee aadaabta leh isla mar ahaantaana u naxariista dadka kale 3 eeg wejiga qofka gaar ahaan indhihiisa markaad qofka wada sheekaysanaysaan isku day inaad eegto qofka wejigiisa gaar ahaan indhihiisa cilmi baaris lagu sameeyay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka in lamaanaha aadka isku jecel ay seegaan 70% ka mid ah waqtigooda marka ay wada sheekaysanayaan marka dadku ay u wada sheekaysanayaan si caadi ah waxay badanaa is eegaan 30% ama 50% waqtigooda haddaba ee qofka 70% ka mid ah waqtiga aad wada hadlaysaan waxaad awood u yeelan doontaa inaad qofka khiyaanto maskaxdiisa oo sidee u khiyaameynaysaa maskaxdiisa maskaxdu waxay og tahay waqtigii ugu dambeeyay ee qof eego waqti sidaa u dheer waxaana u tarjuntaa in qofkaasi jeclaa waxay soo saartaa jawaab ah inay iyana jeceshahay sidoo kale waxay bilowdaa inay sii dayso hormoon loo yaqaano phenylethylamine oo loo soo gaabsho beya kaasoo la mid ah hormoonka ay sii daayaan nervous systemku marka ugu horeysa oo jacayl kugu dhaco 4 noqo qof dareenkiisa qarsada oo aan la fahmi karin inta badan ee aad noqoto qof aan dareenkiisa la fahmin waxay badisaa in wax badan dadku ka fikiraan in wax badan qofku ka fikirana waxay sababtaa inaad qofka soo jiidato qofka aad doonayso inaad jacayl ku abuurto 5 aragtidaada ku badi qofka cilmi baarista ayaa waxaa lagu ogaaday in dadku ay ka doortaan lamaanaha ay xidhiidhka wadaagaan dadka ay badanaa la kulmaan haddii aanu qofku muddo dheer arag waxa dhacaya inuu ku iloobo 6 badanaa dhoola cadee haddii aad gabadh tahay haddii aad nin tahayna wax yar dhoola cadee cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in raggu jecel yihiin dumarka furfuran ee si sahal ah loola qabsan karo marka loo eego dumarka dabeecadda xidhxidhan dhanka dumarku waxay doorbidaan ragga u muuqda inay adag yihiin ee maqsuslayaasha ah marka la eego kuwa kale 7 samee waqti cayiman oo aad maalin walba wacdo qofka isla markaan si kedisa u jooji dhammaan wicista marka ay dadku sugaan waxay rajaynayaan inuu dhaco isla markaana aan dhicin waxay ka fikiraan muddo aad u badan qofka oo wax badan ka fikiraana waxay sababtaa inuu kugu xidhmo xiiso badanna ku qaado taasoo ugu dambeynna sababta inuu ku jeclaado
waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. lumay waqtigiyo daraaruhu kala weecad keeneen wiilku calafku dabaday